السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوضا ميل والبو aad naga daawanayso kusoo dhawo qaybtii 8aad ee sheekadiisa Xardiid. qaybta 7aad ee sheekadiisa Xardiid waxay inoo joogtay caawa waa habeenkii xagaaga kala barayay waana habeenka sugayay ee sanadka dhan aan tireenayay. qaybta 8aadna waxay ku bilaabmi doontaa sida tan waxa weeyaan inaad xasuusan tahay mooyaane habeenkii walaalkay tagay dabadeedna soo noqon walaalkay xasuustiisana habeen iyo dharaar midna madaxeega kama bixin dartiisana aanay biyo iyo baad midna aan ii dhadhamin jiif iyo joog midnaba nafteedu u diiday marka hadda waxaan go'aansaday inaan ka daba tago oo aan raadkiisii maro amba waan helayaa oo waan guulaysanaa amba sida u tagay soo noqod la'aan ayaan u tagi kadibna inta wax yar aamusnaa ayuu haddana raaciyay haddaba markuu habeenkii laba ee xilligan sugaya ay gaarto ee mowjada aad garanaysa timaado waxaan fuulayaa dooniyar oo halkan hadda ku aasan waxaad yeeshaa marka intaad si fiican diyaar u noqoto aniga iyo doontaba natuur oo na raaci mowjada birri casirkii markay tahay haddaan soo noqon waayo sidaadii guriga tag oo intaad buurtii hoos taagto waxaad tiraahdaa amar eebaa dhacay anyaalana tag sidii soo gali oo u tagay mana soo noqon. inta markuu maqlay ayaa inankii Xardiid wadnuhu isgaraacay oo baqdin iyo cabsi gashay markaasoo is yiri afka kala qaad oo hadal intaanu waxba oran ninkii oo careysan baa ku qayliyay miyaanan ku balamin in aanad waxba ii weydiin waxbana isku kay hortaagin. Xardiid baa intoo madaxa lulay iska foorarsaday ninkiisa intoo kacay ayuu bacaad halkan ah oo tuuran qoday kadibna ka soo saaray doon yar oo qof deeqdo markaasoo intuu doontii xeeliga dhigay oo dhex fariistay u digtoonaaday socdaalkiisii lama yaqaanka ahaa wax yar kadib mowjadii la sugaya ayaa soo dhacday inankii Xardiid baa isna dacalka cuskada doontii markay mowjadii noqo istirina ninkii iyo doontii oo ka daba tuuray cabaar boona dabadeed sii fiiriyay ilaa ay ninkii iyo doontii ka qarsoomeen isna halkiibu habeenkii ugu dhamaaday maalinnimadii dambana ugu xigtay markaas isagoo sidii u fadhiyay dhagaxii oo sugaya anyaalle ayaa casirkii ballantu ahayd gaartay hase yeeshee intii cadceedii dhacday oo dhulka madoobaaday ayaa anyaalle oosan soo muuqan soona bidhaamin Xardiid intoo quus kaga soo degay dhagaxii ayuu cagajiid iyo murugo ugu soo kacay xaggii guriga markuu buurta hoosteeda gaarayna isagoo cod dirqi ka soo baxaya oo ku hadlaaya yiri amar eeba ayaa dhacay anyaalana tag sidii soo gali u tagay mana soo noqon. markaasay iridii guriga furantay oo waxaa soo degay ninkii gaabnaay ee buurnaa oo hayo kacsan uur xumina wejigiisa ku taalo haddii oo warkii maqlayna intii ilmo kulul ka soo booday ayuu isaga oo laabtiisa uur ku taalo ka karayso yiri waa amar alle xoolo jacayl baa ninkeedii dishay dabadeed inta wax yar aamusay ayuu raaciyay ilaahay wuxuu qoray nin ka baxsan maayo haddiise mowdku igu simo oo aan ilaahay kal damba noolaado waa hubaal inaan walaaladii ka daba tago amba waa soo nabad noqon amba sidai ay u tageen ee looga quustay baan u tagi la iga quusan. Xardiid baa deeta hadal isiri ninkii baase ku qayliyay kuna yiri aamus haddii kale orad meesha aad doonto tag. Xardiid intoo madaxa lulay ayuu foorarsaday isaga oo murugo iyo tiiraanyo garbihii yaryara isku rogmadeen markii haddana sanadka la dhamaaday ee xagaagii kala bargaaray ayaa ninkii saddexaad isna intuu Xardiid ka haystay isku sii daayay xaggii badda habeenbarkii markii ay gaartayna intuu isna doon yar fuulay ayuu Xardiid ku yiri waan tagayaa siday walaalihii u tageen marka haddaan soo noqon waayo birri casirkii waa ilaahay amarkii oo sidii soo gali ayaan loo tageen ayuu Somaalana u tagay dabadeedna intoo dhex fariistay doontii ayuu diyaar u noqday markay mowjadii timidna Xardiid baa sidii oo kale tuuray halkii boonu ku sugayay isaga. intaas waxay noogu dhamaaday qaybtii 8aad ee sheekadiisa Xardiid.